joogna xarunta commissionka qaranka ee caasimadda Hargeysa waxaanu maanta mar dhaweyd ka soo galnay gobolka Awdal waxaa noo soo gabagaboobay tirintii codadka iyo soo saaristii natiijada oo aanu ku jirnay waqti hore inay noo dhamaatay ahayd xalay laakiinse kolley cabashooyinka iyo xalinta cabashooyinka ay soo gudbinayaan xisbiyadu mawradu ayaanu ka jawaabaynay dib u dhaca nagu yimid ee kooban taasaa sababtay guud ahaan gobolka Awdal si fiican bay uga soo dhamaatay hawshii tirinta codadka iyo soo saarista natiijada dhammaan degmooyinka gobolka Awdal ee lagu haya Saylac Baki iyo Booramo aan soo gabagaynay xalay shacabka reer Somaliland baa guuleystay waxa guuleystay cid kasta oo doonaysay inay Somaliland qaran jira oo noqoto taabagala oo ictiraaf adduunka ku leh waxay noo qabsoontay doorasho hufan oo xor iyo xalaal ah annagana ilaahay waa nagu xil tiray mas'uuliyaddii naloo dhiibay ee naloogu dhaariyey shacabka reer Somalilandna waxaan leenahay natiijada waxaa lagu soo saarayaa waqtigii uu sharcigu sheegay ee xeer 91 ku qoran kadib dhici mayso sidaa daraaddeed waxaa laga warsugo komishinka doorashooyinka qaranka gobolka Awdal wuxuu ka mid yahay gobollada ay soo dhammaadeen tirintii codadka iyo soo saarista natiijadu waxaa kaloo soo dhammaaday gobolka Sanaag oo ay joogtay Commissioner Faadumo iyo gobolka Saaxil oo uu joogay Commissioner Ibrahim waxaa kaloo soo dhammaaday gobolka Sool gobollada kalena laga yaabo caawa inay dhammaadaan sida Burco Maroodi Jeex guud ahaanna waxaanu si rasmi ah natiijada looga sugi doonaa komishinka doorashooyinka qaranka ku dhawaaqi doona waqtigiisii waxaan u mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo naga taageertay fulinta qabashada doorashada weyn ee baaxadda leh ay ugu horeeyaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo kaalin furnimo ka geystay howlgelinta ballaaran ee gees ka gees Jamhuuriyadda la geenayay sanaaduuqda sugidda amniga iyo amniga mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha komishinkaba waxaan kaloo u mahadnaqayaa ardayda jaamacadaha oo muujiyay karti dheeraad ah waxaan kaloo u mahadnaqayaa bulshada reer Somaliland oo muujisay inay yihiin dadgeeya inay noqdaan qaran madax bannaan oo ka dhabeeyay himiladiisa isla markaana gutay waajibaadkii dastuuriga ahaa walibana si xilkasnimo iyo nabadi ku jirto u gutay uguna dareeray safafka codaynta isla markaana ku dhiibtay codkooda waxa guuleysanaya Somaliland guud ahaan waxa guuleysanaya shacbiga goobta ah waxa guuleysanaya calankeena la ilaaha illa allah Muhammad rasuulullah ku qoran tahay waxayna fariin u tahay cid kasta oo Somaliland ka soo horjeeday oo cadow ku ah oo aan jeclayn inaanu ka mid dhalino himiladeena waxay nagu waajibaa isku duubni midnimo iyo in la sugo soo saarista natiijada ku meel gaarka ah komishinka doorashooyinka qaranka insha Allah ta'ala aad baad mahadsantihiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته